Assalaamu calaykum waraxmatullah. Ku soo dhawaad janaalkeena ogaalka xogaha. Maanta waxaa halkan idinkugu haynaa 5 waxyaabood ee caqabad kugu noqon kara inaad barato luqad. Qodobka koowaad, inaad ka cabsato ku hadalka luqadda qalaad. Waxaa dhici karta in ku hadalka luqadda qalaad uu yahay mid adag oo dhib badan. Waa sida dad badan ay aaminsan yihiin, laakiin xaaladdu sida waa ay ka duwan tahay. Markaad aragto qof ajnabi ah oo ku hadlayo luqaddaada hooyo, aad baad ugu farxaysaa. Ugu yaraan waxaad isku dayaysaa inaad u saxdo ereyada uu qaldayo. Qodobka labaad, qalad qaadasho la'aan. Marka ay dadku luqad cusub baranayaan, waxay aaminsan yihiin in qaladku yahay mid aan la aqbalin karin, isla markaana ay waajib tahay in wax walba loo sameeyo sidii qaladka loogu doorsan lahaa. Waxay eegayaan oo qora qaladkii intii ay wax ka baran lahaayeen. Qodobka saddexaad, waddo qaldan oo la raaco. Haddii waddada aad luqad ku baranayso ay kaa xumaato, barashada guud ayay saameyn ku yeelanaysaa. Markaa waxaa nacaysaa luqaddii inaad barato, marka kale aad ka fogaanaysaa. Waxaana habboon inaad degsato qorshe habboon marka aad rabto inaad barato luqad cusub. Mar waliba xasuuso sababta aad u baranayso luqadda cusub. Qodobka afaraad, dhegeysiga oo kugu yar. Isku day inaad luqadda ka dhegaysato in kugu filan. Arrintani ku hadalka iyo dhawaqa erayada ayay kaa caawinaysaa. Qodobka shanaad, ahna qodobka ugu dambeeya ee mawduuceena maanta, inaad si sahlan isku dhiibto. Inta badan marka ay qof wax ku adkaadaan, waxay u badan tahay inuu ka haro. Sidaa darteeda, isku diyaari duruuf kasta oo kugu soo wajihi karta. Naftaada u heeli xaalad waliba si ay ula qabsato. Waad ku mahadsan tahay daawashada fiidiyogan. Haddii aad ku cusub tahay janaalka ogaalka xogaha, fadlan subscribe saar, hana ka iloobin inaad furto gambaleelka si aad u noqoto daawadaha ugu horeeya. Mahadsanid.